السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل wanaagsan dhamaantiinba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta dunida ka joogtaan oo maqalkayaga iyo muuqayaga idinka soo gaaray kuna soo dhawaada barnaamijka gaar ah oo waqtigeenu ugu soo foolay hadii Rabbi raali ka noqdaan idinku soo gudbin doono qaybta labaad ee taariikhda iyo marxaladii kala duwan oo soo maray dugsiga sare ee degmada Awbarhe isla markaana muuqaalka dugsiga nala soo wadaagay Xuseen Cabdi Xasan oo ku magac dheer Xuseen Nayko ahna mid kamid ah hormoodka daayarta muuqaal duubayaasha degmada waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي بريبا أو بحلقة ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قول وعن عدوك وابتو نولو الوناكسن iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaaro wadankeena guul wacan cadowka waafo nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaaro wadankeena waa wadnihi jirkeena waraabina idigo aan ku ardina wadankeena waa wadnihi jirkeena waraabina idigo aan ku ardina mid kamid ah macallimiinta rugcadaaga ee muddada dheer baraha ka dugsiga isla markaana sanadaha qaar soo qabtay hoggaanka ugu sareeya dugsiga ayaa ugu horeyn si qoto dheer uga waramaya taariikhda dugsiga dugsigan aan joognaa dugsiga sare Awbarhe waxa la bilaabay 1999 waxaan ku bilownay arday dhan 320 arday maantana waa kuwa maraya 1900 gogo bay marayaan maantana ma sha Allah marka intaasoo sano ee uu jirayba waxa ka baxay arday fara badan marka 1996 taariikhda Itoobiya ayaa waxa loo ogolaaday barbaartriga waxaan ku bilownay 24 arday oo ka soo noqday jaamacadaha markii dambe wuxuu noqday dugsi ballaaran oo magaranaysa arday fara badan ay ka baxdo maamulaha dugsiga sare ee degmada mudane Daawud Cabdi Ciise oo hoggaanka ugu sareeya dugsiga muddo 2 sano jooga kana mid ahaa ardaydii wax ku bartay dugsiga ayaa dhankiisa ka waramaya taariikhda iyo marxaladii kala duwan uu soo maray dugsigu marxalad badan buu soo maray xilligii la aasaasay dugsiga waa 1989 muddo 20 sano loo laabtay dugsigani aasaasay oo dhisan yahay maantana aduu maadaama ilaahay nagu simay dugsigii aan arday ka ahaa sagalaadkii tobnaadkii aan wax ka bartay maadaama maamulaan ka ahay haddana xilligii ardaygaan ahaa iyo xilligan dugsigu maanta farqiyo badan baa u dhaxeeya isbeddello badan buu soo maray dugsigani wuxuu soo maray intan naga dambaysay dhankan naga xigta gacmaha lagu soo dhiso kolkii dambana la yiraahdo warbal gacmo hoorsi wax la yiraahdaa jira gacmaha inta loo hoorsado la yiraahdo dugsigan maxaad ku deeqaysiin maadaama ardaydii barnaamijka soo fadhiisatay waa 8kii ugu horeeyay markii banaanka u joogsaday gacmo hoorsi baan galay gacmo
horsigii ilaahay uu nagu guuleeyay waxay noqotay maantana inaan barbaartari intaan halkan u joogno quruxda iyo dhirta iyo wanaagaasi uu leeyahay dugsigan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa maantana isoo joojiyay dugsigii aan qaabka u aasaasnay inuu maanta quruxdiisana aanu joogo marka waxaa lagu bilaabayna grade 8 ayaa lagu bilaabo loo soo raro dugsiga hoose Sheekh Xasan laga keenay kadibna kuwii ayaa markaa noqday in ay u gudbaan grade 9 oo halka markaa ka bilaabo marka de dugsigu waxa weeyaan taariikh dheer buu soo maray inta badan waxaa dhisay dadweynaha dhismayaashan inta badan waxaa dhisay dadweynaha waxay ku dhiseen gacantooda tusaale ahaan hadaan soo qaadano fasalada balbalaaran ee xaga ka soo jeeda waxaa lagu dhisay tabarruc baa lagu dhisay khayr allah siiye dawladdu waxbay ka dhistay dugsiga intii u badnaydna tonkan ku dhisnay dadkii ku soo dhisay baan ahayn haddaba waa imisa tirada ardayda guud ahaan wax ka barata sanadkani dugsiga sanadkan aan ku jirnay 2014 labku waa 890 arday dhidiguna waa 845 arday totalkoogu waxa weeyaan 1735 sanadba sanad ka dambaysa ardaydu way soo kordhaysaa tirada gabdhuhuna waxay noqonayaan siyaado 20 sano ka hor dugsiga hal gabadha ka baxday iskuulka fasalka tobnaad ka baxday maantana tobnaadkii iyo labkii dhidigii way shleekaadeen meel fasalada qaarna wax badan ma gabdhaha fasalada qaarna way la sinaadeenba aabbayaasha iman jiray markaasay buuxin jireen marka waxaana la dhisay 1999 baa la dhisay kuwa afarta maqsin oo dhinaca ka soo jeeda waa kuwaas weeyaan marka dadweynaha ayaa dhisay dugsigan sare ee degmada Awbare oo boqolkiiba 80 shacabka degmada ay si iska wax u qabsaa ku dhisteen ayaa ah dugsiga labaad ee guud ahaanba ugu da'da weyn guud ahaanba dugsiyada ku yaala deegaanka Soomaalida haday noqon lahayd dugsiyada ku yaala 11 gobol 60 maamul magaalo iyo 29 degmo kale ee guud ahaanba uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalidu iyadoo dugsigan Awbare dugsiga ku horeeyay uu ku yaalo magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida oo uu dhisay gumaysiga Ingiriisku taariikh ahaan dugsiga markaan ka sheekayno waxa weeyaan waa kii labaad ee Jigjiga soo raacay dugsiga sare Jigjiga uun baa ka daaweyn marka la eego waxa ka daaweyn dugsiga sare Jigjiga oo waqtigii dhargigii dhacay mugtahay dugsiga sare Jigjiga uun baa jiri laakiin markan dambe ee ay magaalada la bilaabay dugsigii labaad ee soo raacay wuxuu ahaa dugsigan Awbare xilli waxa jiray gabdhaha la caawin jiray oo gabdhaha la siin jiray oo hay'ad fawla oran jirtay ay siin jirtay baa jirtay marka xilliga laba dugsi uun baa la siin jiray dugsiga sare ee Jigjiga iyo dugsiga Awbare marka saas buu facweyn iyo muhiimad ballaaran u leeyahay degmada qaar ka mid ah ardayda gabdhaha iyo wiilasha dugsiga ayaa ka waramaya habsami u socodka nidaamka waxbarashada ee dugsiga iyo casharada ku adkaada ka macallimiin ahaan sa uga caawiyaan iyo ka arday ahaanba iyagu sida ay iskaga caawiyaan magacaygu waa Caawi Maxamed Cismaan
waxaan hay ardayd dhigatay dugsiga sare ee Awbar Secondary School waxaan hay grade 11 cashirkii aan shalay dhiganay maanta ilaa ay noogu soo celiyaan ka dambo cusub de nooma dhigayaan oo inuu weydiiyaan su'aalihii waxaan ka fahanay waxaan ka baranay wixii nagu adagnay iyagu noo sheegan kadib saasay cashirka kala noogu saas ku bilaabaan qaab badan oo iskaga caawin way jiraan ama iskuulka dhexdeeda haata ama dibadda qaar xataa gruubaan sameynaa ama dibadda de ama iskuulka dhexdeeda waxa la yiraahdaa maskaxda adiga ka maqan walaalkaaga jirta markaas darteed waxaan maanta aanu garan waayay ardayga walaalkay oo kala garanaya jira labaytanaadkii naga baxay sanad ka dhaweyn 2013 wuxuu 296 labaytanaadkii kasii horeeyay sanadkii hore 2012 wuxuu 694 arday baa sanadkan imika ku jireen 2014 ardayda labaytanaadka noo fadhiisanaysa waa 513 arday labku waa 263 arday dhidigu waa 250 arday totalkoodu waa 513 sanadkii hore ay ka hayeen 300 arday oo 4 arday dhiman maantana 500 bay noqonayaan waa laba laab sanadba sanad ka dambaysa labaytanaadku uu sii siyaadaya waxaan hay ardayad barbaaratoria waxaan dhigtaa galaasna jaran ee kulli ma dhigi karo maawiya inkastoo laabareeri aan nahnay haddana anagu baadee aan awoodi karno iska caawina aad iyo aad baan ku fiicanahay mustaqbalka insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan noqono dadkii bedel macallimiinta dhakhaatiirta dadku soo bixi lahaa inaan noqono wadanka ayaan mustaqbalkayga rajayn doonaa insha Allah oo dhigtay iskuulka secondary-ga dugsiga sare markii hore jirtay Ethiopia xaalad manartii maadeen si fiicanna oo dhigtay iskuulka gurube gaar oo isku xirnaa in gurubiyan isku xirnaa jira meelaan soo socodsiinay jira isku sheegnaa ardayga maqan oo kala xanuunsan oo kala buuqanaa حسيت معلمك ودقات تدقوا في عنيا سفي عنه ودقا سفي عنه لقوا في السنة بوسك معلمك اللي قلت له نبوهيا qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga ayaa dhankooda ka waramaya habsami u socodka nidaamka waxbarashada ee dugsiga iyo fahanka ardayda ee maadooyinka iyo sidoo kale casharada ku adkaada ardayda ka macallimiin ahaan sida u fahansiiyaan magacaygu Cabdulqaadir Xuseen Askar waxaan dhigaa maadada history maadada aan dhigayo ardaydu waxay aad u fahmaan haddii ay jiraan wax gaab oo aanay ardaydu fahmin waxaan sameeyaa revision casharkan ku celiyaa waxaan dhigaa maadada juqraafiga ardaydu si fiican bay ula haystaan maadadu waa maado ku saabsan deegaanka iyo qariirada iyo Afrika iyo dhammaan caalamka waa maadada kaliya xiriirisa dhammaan maadooyinka ardaydani si fiican bay u fahmayaan waxaan practical ku siinaa dhirta deegaanka qaabka juqraafikali iyo sida deegaanka iyo wadanka wax u bedel lahayn haday noqoto xagga bacriminta haday noqoto xagga dhaqaaleynta dhirta haday noqoto juqraafikali buuraha iyo dooxyada iyo qaabka jeexjeexyada iyo wax kasta loo hortagi karo practical iyo theory waan ku siinaa
refusion baan ku siinaa naqtiin baan ku siinaa tutorial class baan ku siinaa maalmaha sabtiya xataa kolkol soo celinaa oo yarna fahanka hadduu ku adkaado waxaan qiimeyn ka qaadanaa imtixaanka maadada sida ardaydu 100% ay u keenaan marka imtixaankooda hadduu hooseeyo dib baan ugu celinaa baahida ugu weyn ee waqtigani ka jirta dugsiga ardayduna u baahan yihiin inay ka caawiyaan xukuumadda qurba joogta iyo waliba shacabkuba ayaa waxaa ka mid ah maktabadda buugta lagu akhrista ama librariga oo hore u lahaan jiray dugsigu ha yeeshee muddo 2 sanaaba qabyo ah oo aan xukuumadda dhankeeda ka helin dayactir dhammaystiran ha yeeshee bulshada degmada iyo qurba joogta degmadaba uga baahan dayactir dhammaystiran horta baayida ka jirta iskuulka waa library la'aan libraryguna ardayga waa fahanka koobaad buu u yahay macalinku casharka uu siiyo isagoo ka aqoonsan waagtii maadaama library uu yahay iskuulku waxaan dhihi karaa baahida koobaad waxa weeye library la'aanta baahiyo badan baa walaahi ka jira ma haysano qalabkii laboratoryga aan ku arki lahayn sida maanta waxaan soo qaadnay practical biology waxa sida la wada ogsoon yahay in library-ga hadda ka hor bugubtay iyana looma dhameystirin waxaan ka codsanahay marka in loo dhameeyo library-ga kadib alaabta kale aan u baahnay laboratory-ga in loo keeno insha Allah laboratory-ga kale laga caawiyo in badan waan u baahanahay ardayda badankooduna u baahan yihiin marka insha Allah taas weyn baahideedu weyn in laga caawiyo doonaa library-ga arday library ma haystaan library-gi 2 sano 3 sano kor 2 sano kor bugtay ilaa maanta wax adeeg noo bixiyo maanta hay'adana kaashanay qalabyo badan baa loo keenay oo lagu tagay laabka laakiin dhismihiisii ma dhamaystirna dhalinyarteena ka baxday dugsiga sare aw bare lacag bay soo ururiyeen 450 kuna guddi bay u soo dhibeen guddigii hawsha ay wadeen iyadoo qabiya lacagtii way dhamaystiri weydii qabiyo library-gi maraya waxa dhiban in marmar la dhigo muraayad lagu xidho ama sibirkii la dhigo nuuradee rinjeeyo waxbaa dhiman daaqadi baa dhiman marka degmada xafiis gudoomiyaha degmada wuxuu sanadka nagu diray haduu la yiraahdo lacag buu qabtay miisaaniyad gaar uu qabtay in sanadkan lagu dayactiro library-ga tiina waan sugnaa insha Allah dugsigan sare ee degmada Awbarhe oo ah dugsi taariikhi ah isla markaana ay ka baxeen arday aad u fara badan sanado kala duwan oo waqtigan ku nool deegaanka gudihiisa iyo dalka dibadiisa ayaa qaar kamid ah ardaydii ka baxay dugsigu waxay nasiib u heleen macallimiin ka noqdaan isla dugsiga ay ka baxeen oo shalay markay arday ahaayeen samuuradii casharka ku qoran jireen maanta iyagoo macallimiin casharada ugu qora arday kale ay sheegaysta kala dugsigan sare ee degmada Awbarhe ayaa ah mid kamid ah hormoodka waxbarashada dugsiyada sare ee deegaanka Soomaalida guud ahaanba dhowr iyo 20 sano u dambeeyay dugsigaas sare ee Awbarhe waa dugsi taariikhi ah ardayda ka baxday waxa weeyaan waxa lagu qiyaasi karaa dhowr iyo 60 oo arday baa lagu qiyaasaya waxa weeyaan cala sanad waan u sameeynay waxaan ugu sameeynay graph waxaad ka helaysaa office-ka oo aad sawir kartaan sanad walba intii ka baxsay marka waxaan ugu sameeynay bar graph marka tiro ilaa 260 kuna ka baxay sida daraaddeed dugsiga waa halbowle iskuulkani waa iskuul tayo badan arday badan ka baxday oo aad fara badan run ahaantii qoysas badan ku kolkii shaqo ay heleen ku weeladnaysteen waxaananu aynay alxamdulillaah rabbil caalamiin caruurtii nooga baxday dugsiga atonka lagu dhisay midhaheedii baan cunaa ilaahay baa isku kaaya gaarsiiyey kuwa imika dhiganayana waxaanu rajaynaynaa ilaahay adduuna gaarsiiyo inay maxay ahayday waalidka imika ay waxaana qaadeen midhahooga cunaan baan ilaahay ka rajaynaynaa
deegaanka dhulkeennaye duniyo dooxiyo bannaan khayraadku ku daadsan yahay aan soo daawanay deqaay kaalay ila dalxiis dugsiyada barashiyo daryeelada caafimaad dadiya dunyaba maxalayaan soo daawanay deqow kaalayla dalxiis deegaanka dhulkeennaye duniyo doxiyo bannaan khayraadku ku daadsan yahay aan soo daawanay deqaay kaalay ila dalxiis dugsiyada barashiyo daryeelada caafimaad dadiya dunyaba maxalayaan soo daawanay deqow kaalayla dalxiis haddii mar macalinka joogo ardaygiina joogo keliya waa tayadii kor loo qaado nidaamka tayaduna waa laabka ardayda loo dhiso librariga loo dhammaystiro teknolojiyadda kor loo qaado maamulaha dugsiga ayaa sheegay in bishiiba hal mar ay ardayda dugsiga ka qaadaan imtixaan si ardayda hooseysa tayadooda kor loogu qaado ka maamul ahaana ay macalimiinta dugsiga ku dabagalaan in ardayda dugsiga ka qaadaan imtixaankaas iyo tasdiyada la badiyo waxaan soo goynay in bil kasta la qaado maado kasta 20 dhibcood ama 10 dhibcood la qaado bil kasta qorsheyn bishii dhawaan qaadnay wax ku xaqiijinaa tayada ardayda iyo isbedelka maadooyinka ku hooseeyaan maadada ku hooseeyaan si kor loogu qaado waxaan ku qiimeynaa tasdiyo bil kasta waxaan qaadnaa macallin kasta wuxuu qaadayaa waa 10 dhibcood iskuul gebigiisana hal maalin baa la qaadaya halka maalin imtixaanka loo diyaar garoobaya waana ku dabagalnaa macallintu inay imtixaan ka qaadaan tayadii ardayda taas waxba ka bedelaysaa dugsi lagu baraaro dadweynaha ka simano waa xarun dalxiiskaba daayuhu aanay ka daaline dugsi lagu baraaro dadweynaha ka simano waa xarun dalxiiskaba daayuhu aanay ka daaline waxaan dhigaa maadada ingiriiska waxaan dhigaa muddo maxaa ahayd 16 sano ayaan dugsigan ka dhigaa maadada aan ka bixiyaa sidaa daraaddeed markaa maadooyinku marka ay ku ka adkaadaan ardayda waxaan sameynaa group ayaan isku xidhnaa group discussion iyo markaasi make up class baan u sameynaa saasaan markaa ardayda u caawinaa wixii naga adkaada markaasi marka la soo xidhiidhana waan ka caawinaa waxayna soo weydiiyaan baahiyaha kale ee ka jira dugsiga ayaa waxaa ka mid ah baahi dhanka macalimiinta oo u baahan inay xukuumaddu keento macalimiin kale si ardaydu u helaan macalimiin ku filan iyo maadooyin dhammaystiran way jirtaa macalimiin loo baahan yahay sida maadooyinka xisaabta preparatory macalimiin loo baahan yahay way jirtaa macalimiin yaraan way jirtaa laakiin 100% wan daboola gaabka hadana macalimiintu waxay u baahan yihiin ma haystaan public staff ama staff room qolkii macalimiintu ay fursanayeen ma haystaan taas way u baahan yihiin sidoo kale waxay u baahan yihiin dhiirigelin fara badan sida seminaaradii macalimiintu ma haystaan sidoo kale iskuulku alxamdulillah xaaladiisu way fiican tahay waxaan kaloo ku guuleysanay isku xirka barayaasha
iyo maamulka oo aad u hooseyn jiray maanta maamul iyo macallimiin walaalo kasta shaqadii macallimiinta waa loo tilmaamay markaan kalgacayl iyo kalsooni ku abuurnay macallin kasta shaqadiisa isagaa wato macallin kasta isagaas tiraya macallin kasta isagaas ku jecel waayo moraal baan siinay macallinka iyo waxaan siinay adeeg service baan siinay awal iskuulka qaxootiga jaar baan nahay dugsiga qaxootiga macallinta wax lagu qaadaa gaari macallinta iyagoo logeynay markaa halkaan ku muraajabi jireen marka maanta u iibinay macallimiintii iyagana farxad xataa ciyaalka sidii ay u dhigayeen si ka fiican ayay u dhigayaan taasina waxa weeyaan waa isbedelka yimiday marka Jigjiga University ayaan ku soo qaatay heerkaygii jaamacadeed waxaan soo qaatay competition gaar ahaan department biology marka nasiib wanaag waxaan fursad shaqo ka helay dugsigayga sare ee Awbare inaan macallin ka noqdo oo ka howlgalo marka alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan dugsigan ka baxay macallinka ahay talabaadan ku faraxsanahay weeyaan macallimiintii aniga ii dhigasay ay soo gacan qabatay anigoo garab taagan oo haddana macallin la ah taasna fursad qaali ah ay ii tahay oo ma qiyaas karo annagu xidhna office-ka maadaama office-ku intaas oo sano dhisan yahay aan la dayactirin waxaan sameeyay range iyo albaabada bedelnay bilfooma ku sameynay si ay bilicda office-ku qurux badnaato loo sameeyay solar system solarkaas waxaan u tagalnay xilliga loo baqan yahay in bal qaybta IT-ga computer-ka iskuulka gudihiisa hal fasal iyo light habeenkii lagu shito laakiin computer solar weyn oo kicin karaya computer maaha laakiin adeega office-ka ayuu noogu shaqeeyaa xilliga loo baqan yahay maamulka sare ee dugsiga oo dadaal ugu jira sidii dugsiga sare ee degmadu uu la jaan qaadi lahaa nidaamka teknoolajiyadda casriga ee dunida ayaa dhowaan dugsiga sare ee degmada ku soo kordhiyey nidaamka cusub ee markaasi farta lagu saarayo qalabka cusub ee loo yaqaano fingerprinterka oo dhammaanba macallimiinta dugsiga ay ku xaadirayaan maalinkiiba 2 jeer oo kala ah marka ay macallimiintu soo galayaan dugsiga iyo marka ay ka baxayaan iyadoo qalabkana uu sahlaya in markaasi si fudud loo ogaado xogta macallimiinta ilaalinayana waqtiga iyadoo hadda ka horna macallimiinta dugsiga ay ku xaadiri jireen qalin iyo buug sidoo kale waxaa xusid mudan in dugsiga sare ee degmada Awbare uu noqonayo dugsiga ugu horeeya ku yaala deegaanka isla markaana barayaasha dugsiga oo ay ku xaadirayaan nidaamkan cusub ee markaasi farta lagu saarayo qalabka cusub ee loo yaqaano fingerprinterka taaba sanadkan ku guuleysanay kala ardayda waxyaabaha aan ka caawino waxa kamid ah biology ahaan horta biology-gu waa science-ka waa qaybaha ugu muhiimsan weeyaan haday caafimaad noqoto haday wax kasta noqoto hase ahaatee waxyaabo badan ardaygu inuu waxyaabo badan ka fahmo ayaa loo baahan yahay marka ardayda haday ay ku adkaato galaas ahaan ay ku adkaato plasma ahaan ama plasma filioga markay ku qaataan waxyaabaha ku adkaada inta dictorial galaasano qabano sabti ama axad aan galaas u qabano ayaan chapterada summary ahaan ku siinaa ama chapter kasta summary-giisa ama conclusion ahaan aan ku siinaa sidoo kale waxaa dugsiga ka socda dhismaha 4 fasal oo cusub oo lagu darayo dugsiga isla markaana ay maalgelinaysa mid ka mid ah hay'adaha ka howlgala degmada hay'adee 40 fasal oo cusub ayaa la rajeynayaa marka ay soo gabagaboobaan inay daboolaan baahidii fasal yarida ee ka jirtay dugsiga ardayduna helaan fasal ku filan waxa dugsiga socda dhismo balaaran oo 4 qolol loo balaarinayo oo marka arki doono waxa dugsiga keena fingerprinter oo atanisiga macalinta ku xaadirino dugsiga waxaan gelinay internet baan gelinay si ay foomka jaamacadaha lagu buuxiyo internetka maanta wifi caadi u shaqeynaya hadda galno uu shaqeynaya waxaan dhigtay koytanaad naturalcy iskoolkii aad iyo aad buu fiican yahay barashadiina aad iyo aad buu tayo sareysaa dugsigan waa hoyga aqoonta marka dad badan baa ka baxay oo foor xidhay markii dambe wuxuu noqday dugsi ballaaran oo magarasa arday fara badan ay ka baxdo sidaa daraadeed dugsigani waxaan odhan karnaa waa hooyada degmada Awbare
madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo iftii hogaaminayo oo dhawaan degmada Awbare uga soo qayb galay dhagax dhiga maktabadda Awbare ayaa dhawaan si rasmi ah degmada Awbare gaar ahaan xaruntii hore ee dhakhtarka degmada waxaa si wada jira uga dhagax dhigay maktabadda Awbare madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweynaha jaamacadda Camuud maktabadani oo maalgelinaysa hay'adda Camuud Foundation isla markaana ay ku baxayso lacag dhan 40 milyan ayaa kaliya xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida waxay maktabadda Awbare kaga qayb qaadanaysaa 3 milyan iyadoo maktabadani Awbare la rajaynay inay ku soo gabagabowdo muddo hal sano ah sidoo kale maktabadan ayaa la rajaynaya marka ay soo gabagabowdo inay noqoto mid kamid ah maktabadaha ugu weyn deegaanka Soomaalida hay'adda madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabadda dhagax dhiga maktabadda Awbare ayaa sheegay isla markaana ka marakacay in shacabka ku nool degmada Awbare deegaan weynaha Harawo ilaa magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ay yihiin shacab ku caana 3 shay inay yihiin shacab ay ku weyntaa Soomaalinimada isla mar ahaantaana jecel midnimada ummadda Soomaaliyeed aqoonta amba waxbarashada iyo guud ahaanba nabadgelyada degmadan Awbare shacabka aagan degan guud ahaan ilaa Boorame laga soo bilaabo ilaa iyo aagan saaka aan marinay degmooyinka waxay caan ku yihiin 3 shay Soomaalinimada inay midnimada Soomaalida hormuud yihiin oo ay jecel yihiin wax shaki kuma jiro waxay caan ku yihiin waxbarashada iyo aqoonta waxa loo asteeyaa la yiraahdaa qoys ahaan marka laga hadlayo waa dad wax bartay waxbarashada jecel weyn waxa kale oo caan ku yihiin nabadgelyada mudane madaxweyne waa run degmadan Awbare waa hoygii aqoonta weey waa hoygii waxbarashada weey waa hoygii nabadda weey Camuud Foundation shanta gobol ee Soomaalidu ay degto ee la sheegay dhulkan geeyigana geeska Afrika shantaba way ka shaqeeyaan arinta mashruuca maanta halkan aanu joogno baanta maadaama oo shacabku ay hawl iyagu ay wataan iyo Camuud ay tahay anaga taageero un baa nafaran anaga xukuumad ahaan 3 milyan baan ku daraynaa oo contribution intaas ummadaha horseedee u hayaamay dayaxiyo awooda la hiilsado tacliin bay ku haysaa ummadaha horseedee u hayaamay dayaxiyo awooda la hiilsado tacliin bay ku haystaa Soomaali doondoon halkii laga bilaabay waa halkan Soomaali raadcadeeda buurtii loo fulay wata halkaasay ka dhalatay Soomaali raadcadeedii bilowgeedii waa ka oraha badroolkiyo hantidiyo barwaaqada eebena hoos dhigay waa laga habsaamay ugu dambayna madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa shacabka ku nool degmada Awbare iyo deegaan weynaha Harawo ku sii dhiirigeliyay inay horumar ugu sii hadaan dhanka nabadgelyada waxbarashada iyo waliba Soomaalinimada dhammaanba shacabka deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliyeed kale inkastoo shacabka ku nool degmada Awbare iyo deegaan weynaha Harawo ay ahaayeen mid kamid ah shacabkii sida weyn u soo dhaweeyay isbedelkii 3 sano ka hor ka dhacay deegaanka Soomaalida ee madaxweynaha deegaanka Soomaalida loogu doortay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar isla markaana madaxweyne Mustafa iyo xukuumaddiisa ka filayeen inay ka helaan waxyaabaha xaq u leeyihiin shacabka ku nool degmada Awbare iyo deegaan weynaha Harawo oo ka kootahay inay helaan gobol ay bulsho ahaan u qalmaan degmooyin dhowr oo ka maqan gobolka xarun caafimaad oo weyn oo casri ah u baahan tahay degmadu iyo in la dhiso jidka rafka ee waqtigan isku xidha degmada Awbare iyo magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida oo socdaalkan ka horeeyay madaxweyne Mustafa iftii hogaaminaya ay ku tageen magaalada Lafaciis ee degmada Awbare ballanqaadyo u sameeyeen shacabka aysan noqon ballanqaadyadaasi mid fula bilooyin kadib hay'adda qaar kamid ah odayaal dhaqameedka degmada oo ka hadlayay dhagax dhiga maktabadda Awbare ayaa madaxweynaha mar kale ka codsaday waxyaabaha xaq u leeyahay shacabka ku nool degmada Awbare oo ka kootahay inay helaan gobol ay bulsho ahaan qalmaan degmooyin dhowr oo ka maqan gobolka iyo in la dhiso
degmooyin dhowr oo ka maqan gobolka xarun caafimaad oo weyn oo casri ah u baahan tahay degmadu iyo in la dhiso jidka rafkiga waqtigan isku xidha degmada Awbar iyo magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida oo madaxweynuhu dhankiisa ballan qaaday isla markaana uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka soo jawaabi doonto ayashee shacabka degmada Awbar iyo deegaan weynaha Harawa waxay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uga fadhiyaan ballan qaad kaas oo noqdo mid fula balse aan noqon sidii kii hore mid kaliya afka uun laga sheego nabadgelyada awalba waa dad nabadgelyada haydada oo la isku dardaari maayo colaad la iskuma aqoon jahli la iskuma aqoon Soomaali ka carar la iskuma aqoon saddexdaa wad wadin inaad hormood u noqotaan xukuumadda marka waxayna muujinaysaa xadaarada dadkan ay muujinaysaa halkan in lagu amshaareynaya maaha dadkan marka inay xadaarad leeyihiin oo reer magaal yihiin bay muujinaysaa xukuumadduna taa un bay u socotaa halka in la gaadho bay rabtaa marka shacabku diintiisa xor inuu noqdo dhaqankiisa xor inuu noqdo isdhexgalkiisa iyo Soomaalinimadiisa inuu xor u noqdo horumarka iyo nabadgelyada iyo wanaagana uu ka wada shaqeeyaa loo baahan yahay mudane madaxweyne waxaan leeyahay haddii aad timiday dariiqan jajaban kii madaxweyne taariikh ku noqda inaad noqotid oo markaa dariiqaad noo samaysid ayaan kaa codsanaynaa waa dariiq halbowla wuxuu isku xidhaa degmada Awbarre ee qadiimiga lafaciise magaalada Boorama Jigjiga ayuu isku xidhaa waa halbowle mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa mar haddii aad timiday inaad dariiqaa noo samaysid waxaa laga hadlay dhanka baahiyaha isbitaalku sanadka miisaaniyadda wuu ku jiraa in isbitaal Awbarre loo sameeyo miisaaniyadda waa lagu daray waxaa soo hadhay wadada baahida hadda laga hadlay wadadaasi waa muhiim Awbarre kaliya muhiim ma aha waxay muhiim u tahay Jigjiga iyo Boorama inay isku xidho oo ganacsiga Jigjiga iyo nolosha Jigjiga bedelaysa hal saac xitaa lama soconayo marka waad garan kartaa magaalada Jigjiga oo Hargeysana laga imanayo muxuu ahay Boorama laga imanayo inta kale faa'iidays ka dhacaya iyo isdhexgal bulsho bilaabmayo weeyaan waad garan kartaa marka waa hawl annagana saaran already waraaqeedii waa la qoray saad ogtihiin wadooyinka wixii laamiya waxaa lagu sameeyaa heer federaal marka 10kii wadooyin ee strategically waa noo muhiim aan leeyahay sanad ka hor gudbinay ayay ku jirtaa wadada xornimada siyaadi iyo sawdkaaga bogadiyo isbedelka siyaasadda waanu soo dhawayno sacabkow garaacne yaani noqon saro hadal dadka samaha maqashii ana suuragelinine sidii wacadka lagu maray waa inaad ku socotaa xornimada siyaadi iyo sawdkaaga bogadiyo isbedelka siyaasadda waanu soo dhawayno sacabkow garaacne yaani noqon saro hadal dadka samaha maqashii ana suuragelinine sidii wacadka lagu maray waa inaad ku socotaa سنة كان لبضو كوني أفريتون كوحنا قرشيسان معمولهان إن أنا وقبنا هدو إلهي هذا دوسي واحد كوحدنا سيسي كاميرا لما ما كورجينا ما دام دوسي قلب بدن يالو هانتي بدن تالو كمبيوتر يالان ليبراري حتى كور نغبتي سي أنا حفظنا waxaan doonaynaa inaan ku xidhno CC camera دوسي هانا أنا وفرينو qaabka aan casharada uga caawina wax weeyaan midleen group discussion wax la yiraahdo sameeyo group discussion kaasi ardaydu waxyaabaha ka soo dhaxbaxa afkaartana kaga soo noqota annaga ayaa dib ugu sii sharaxnaa aad bay u fahansiin waxa moodaa ardayda naturalku aad bay u fiican yihiin فأنا في عين aad bay wanaagsan yihiin واي waxaad moodaa inay iyagu laftigooda hore loogu sii dhigayba qaabka ay wax u fahmayaan markaad aragto chemistry-ga dhigana waa organic chemistry weeye waxa kale noo qorshaysan container-kii weynaa ee buugta library-ga noo keenay hadda ka hor 10 sano ka hor keenay iskuulka isku dhex yaala waxba nooma taro kii waxaan doonaynaa sanadka inaan ka faa'iideysano fasal ahaan u isticmaalno laboratory mala dugsigu lab baan u isticmaalnaa qalabkii labka waan haysanaa container-ka weyn albaabaan u samaynanaa daaqadaan u samaynanaa bilifon baan u samaynanaa si ay u noqdo fasal caadiya oo ardaydu markay practical u baahan yihiin labka ay biology iyo chemistry markay doonayaan practical inay qaataan kiimikooyinka wax walba waan haysanaa
inay ku qaataan practical ayaa noo qorshaysan haddii la yidhaahdo waa waxyaabaha annagu maamul ahaan iyo macallimiin ahaan aan fuliyeyno weyn si fiican baan u qaadanaa haddii wax gaabi uu jiro annaga ayaa ahaan ardayda isxayn sida gaardada naankaana kuwayga 12aadada ayaa caawiya marka ICT-gana gobol noo shaqeeya inkastoona sidii berigii hore ahayn keliya waxa naga maqan waa library qaybta library-gana annaga is caawina oo dee 12aad iyo 13aad iskugu jirna faanka waxbarashada wallahi aad buu u fiican yahay inkastoona ardayda isku wada dabeecada inay kala duwan dabeecad haddana markuu macallinku u sharaxo wixii ka dambeeya hadday ardaydu fahmi waayeen annaga ku noqonay maadooyinka maadaama balasnayada shaqeeyeen maamulaha dugsiga ayaa sheegay in maalmaha qaar ay ardayda dugsiga u soo marti qaadaan culumaa u diinka aqoon-yahanka iyo waxgaradka bulshada si markaasi ardayda ugu waaniyaan akhlaaqda wanaagsan iyo ku xidhnaanshaha ilaahay oo dhammaanteen aynu wada baahannahay ardayda dugsiga joogta waa arday waa wada awbare waa arday islaama waxaan ku waaninahay inay salaada tukadaan inay xagga cibaado u adkaadaan arday akhlaaqadiisu ayna ay wanaagsaneen oo disbilinkiisa timiisa wanaagsaneen wax bari maayo waana siinaa culimada diinka magaalada ayaa loo timaadaa macallimiinta laftooda waxaan ugu jira culimaan ugu jirta culimadaas la kaashanaa wixii akhlaaqiyad aan dhisi karno waan dhisnaa ilaahay nagu afaa quraankeena kariimka fahmadeena iyo qalbigeena ilaahay nagu furo maanta waxaynu soo booqday waa walaalaheena waraga media noo qaabisana oo bare dugsigeena library inta hadda ka hor soo qabiya sawiraan bay dhigeen caalamkii khadka dhigeen dad badan baa ka qayb qaatay waxa maanta library jiga saaran tahay haddana waxaan doonaa waxyaaba baahideena kulbaynan inaga duwa maalin wax naga qaadeen baahida dugsiga macallimiinta inay macallintu ogeeyaan inay hablo ku dhaxalusan suulka waagidooda iyaga naga qaaday media ha dhignay ilaa ay bulshadeena marka dambe aan soo barnayn inay noo iibiyaan gaadh noo iibiyaan qorsheena noo fulay maanta waxaan u baahanay ma soo dhiganaa walaalaheena way noo baahinayaan walaalaheena kale iskuulka baxay iyo ehelkeena ka maqan iskuulka ayay noo gaarsiinayaan taasina inaga faa'iido noo tahay aan u diyaar garowno laakiin muhiimadu waxa weeyaan in loo dhammaystiro adeegii ardayga maanta TD ba lama qaadan jirin iskuulka xilliyadii hore waan dhignaa amxaarigii waan dhignaa ICT-gii kombiyuutarradii waa practical buu qaadanayaan iyo tiir labadaba macallinta way noo joogaan caqabada nagu weynaayna naga yar baqanimka 7 iyo bishan aan shaqeynay waa leerka oo naga yar xumaado go'a ma kuleelku laakiin jiro imika kombiyuutarradii iyo balaasmaanku noo shaqeynaya leerka naga cilaysan laakiin ma ku hagaago waan haysanaa macallinta ICT-ga noo dhigayay oo ah practical iyo tiir labadaba sinayo ugu dambayna waxaa maanta si rasmi ah dugsiga sare ee degmada Awbare uga bilaabmay imtixaanka semesterka koobaad ee sanad dugsiyeedkan waxaana kormeer uu kurgalayeen qaabka imtixaanku uga bilaabmo ugana socda dugsiga sare ee degmada Awbare ku tagay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Awbare mudane Cabdi Khadar Maxamed Awaadan hay'ashee kormeer kadib gudoomiyaha ayaa sheegay in dugsigan sare ee degmada Awbare uu noqday mid ka mid ah dugsiyadii kaalmaha ugu horeeyay ka galay dugsiyada ku yaala gobolka Faafan iyo guud ahaanba deegaankan Soomaalida isla markaana dugsiga sare ee degmada Awbare uu mudan yahay inay ku daydaan dugsiyada kale ee deegaanku sidoo kale gudoomiyaha ayaa soo dhaweeyay dadaalka ay muujiyeen maamulaha iyo macallimiinta dugsigu kuna sii dhiirigeliyay maamulaha iyo macallimiinta dugsiga in dadaalka ay sii laba jibaaraan ka gudoomiye iyo maamulahaana ballan qaaday in hadda kadib ay garab taagan yihiin dugsiga maanta waxaan noo bilaabmay oo taariikhdu tahay 16 bishii shanaad 2014 sanad dugsiyeedka taariikhii koobaad ee imtixaanka kaasi oo si habsami loogu bilaabmay ardayda wax ku bilownay 12 iyo 12 ardayda 10 iyo 9 waa gelka dambe sida awgeed waxaan labada qaybood u qaybinay fasaladii maadaama la deeqayn imtixaankan uu doonay la balaariyo ayaan u qaybinay laba shifti asal ahaan isku ku fiican yahay laba shifti laga dhigaba maadaama ka maanta guud ahaan dugsiga si fiican buu imtixaankan ugu bilaabmay iyadoo ay ardaydu soo xaadir ku yihiin imtixaanka dhammaan ardayda kooxda kale soo xaroodeen 10 iyo 9 hadhow gelka dambe warbixintan si doono maanta si rasmi ah loogu bilaabmay imtixaankii termka koobaad ee degmada Awbare kaasi oo si guud maamulka degmada nagala qayb qaadanaya ku soo marnay dugsiyada qaabka imtixaanku u socdo geedi socodkiisa hanaanka habka loo ilaalinayo
walow ay jireen fasallada qaarkood ay ciriiri ahaayeen oo aan tala bixin ka siinay haddana waxaa si rasmi ah u bilaabmi doona oo jadwalkiisii ku bilaabmay imtixaankii koowaad ee degmada ilaa maanta 5 iskuul baan soo marnay bay ahaydon qaab socodkooda soo tijaabinay maanta waxaan soo booqanay dugsiga sare ee magaalada Awbare kaasoo uu bilaabmay imtixaankii semesterku oo marka dugsigana wuxuu ka mid noqday dugsiyada kaalinta saddexaad galay gobolka Faafo waa dugsiga kaliya galay marka waxaan dhiirigelin ku sameeynay macallimiintii ardaydii howlahan waday marka si fiican buu shaqadiisana wada waxaan leenahay waa dugsi lagu dayan karo dadaalkana waxa keenay maamulaha dugsiga iyo waxa tiimka la shaqeynaya waana soo dhaweynayna waxaanan anaguna maamul ahaan iyo xafiiska waxbarashada dhiirigelin ayaan la garab istaagayna insha Allah wixii ma ka dambeeya si uu kor xaqan uga sii socdo kaalinta uu taagan yahay marka waxaan rajaynayaa iskuulka isbedel fiican dhibcihii ardayda labitanaadka sana kor u baxday hay markay bay keeneen labitanaadkana dhibca sana u rajaynaa kuwan gali doonana khayr baan rajaynaa insha Allah waxbarashadii saaka abaare 8 subaxnimo ay soo bilaabeen ardayda dugsiga sare ee degmada Awbare ayaa hadda oo goorsheegta degmada Awbare ku beegan tahay 12 barkii duurnimo waxa la soo gaaray daawadayaal waqtigii ardayda ay waxay jireen isla markaana ay hal mar ay ka bixi jireen dugsiga hay'asha muuqaal duube Xuseen waxaan ku codsaday bal hadda inuu kaamarada dusha muuqaal ka duubto loo yaqaan droonta inuu nagu muujiyo 1735 ka arday ee wax ka bartay dugsiga si markaas ay u xasuustaan arday badan oo ka baxay dugsiga isla markaana fursad u heleen dib u soo booqdaan dugsiga si markaas ay dib ugu soo booqdaan dugsigoogii isla markaana ay la soo garab istaagaan dugsigooga wax walba ay la soo garab istaagi karaan oo ugu horeysay inay ka qayb qaataan markaasi baahiyaha ka jira dugsiga ee markaasi hore u soo sheegnay كبير وعنو تفسد حتى عليو لما وصلوا تشيد كرابو لعيار قبشو توشدوا الرانو وانكوت عيني ولله نقدون كبير وعنو تفسد حتى عليو لما وصلوا تشيد كرابو لعيار قبشو توشدوا الرانو وانكوت عيني ولله نقدون وانا قدومي وانا قدومي وانا قدومي adduunyadu hayaaniyo waa hawla badanto igsinima lahayn